السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا كسودو channel كسومالي أكشن هداد كو عصبت طيب وحن كاعود سنينا نو سبسكرايب قريسو نو شير قريسو وحي كومنت نو حقينا ما انت توبيقنا أما موضوعنا وحكو سابسين هاي وقاها لنا عذرك كقرحي تشينا هركب كقرحي تشينا ودنك تشينا كورول سوليرا ayaan ka hadlaynaa saad ogtiin bahargabkaas wadanka China ka qarxay dhibaato badan ay u geystay Chinese-ka caalamka dhanna way ka qaylinayaan waa hargab laga yaaban yahay oo maaragtay 14 bari gudahooda ayaad ku ogaanaysaa inaad xanuunka qabto 14 bari gudahooda xanuunka baad ku ogaan kartaa ka hor kuma ogaan kartaa hargabka 14 bari markood marayso baad ogaanaysaa وكسور لدينا يا أوغانيسا كهر ما أوغان كرتيد سلامة لو كلا قادا أفكا ماركتي دتك أنا حرتام وسلامتي أركتي ده لو كلا قادا سي أجيب شيء جيان عذر كاس ودك تشينا كقرحي كورونا كاس تشينا كقرحي هرجب كا ودين لبض بقول أوقف بدلي إلا أفر كم أوقفنا ويقف تابع لليه سي أجيب شيء جيان لكن waa ka badan yahay way qarinayaan wadan oo galma jirtay dadkiisa ay soo dhaar intaas oo kunba qabto laakiin cudurkaas wuxuu ku imaaday arin maaragtay wuxuu ku imaaday arin aad iyo aad markii loo gadab galay oo la baaray cudurkaas wuxuu ku imaaday muslimiinta ku nool wadanka China ee lagu dhibaateeyay lagu caqadabeeyay ayagoo soonkooda xoog lagu furi jiray ayagoo maartay sunnooyinkoodii garkoodana xoog loogu xiirayay qaarkoodna intii midiyaha dhoonta laga saaray leeyahay ridooba oo diinta ka baxa dib weyn masaajidihii laga burburiyay 2 milyan oo qof meel lagu xareeyo lagu go'doon ay ku jireen sidaa darteed buu cudurkan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu asiibay oo maartay uu ku keenay awoodii alle ayaa rabbaaniya oo shaqeynayso Chinese wuxuu yiri anigu military baan leeyahay waan xooganahay dhaqaalan leeyahay wiir waan xooganahay wiir awood baan leeyahay wiir laakiin se Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa waxa soo dhan iskala awoodda Allah leh awooddoodii maanta waxa la tusay wax aad iyo aad u yar ayaa lagu tusay awooddoodii awoodnimada ay sheeganayeen islaamka meesha ku nool ee lagu dhibaateeyay sabirkay sabreen maanta labadooda markii loo fiiriyo ayaga ka dhibaato badan oo maaragtay ka walbahaar badan islaamkaas meesha ku nool ee Chinese-ka ee diinta qaatay laguna jirdilay lagu dhibaateeyay diintooda u dhabar adeegeen diintoodana maaragtay ku dhaganaadeen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay inna diina 'inda Allahi al-islaam diimaha maanta diinta ugu qiimo badan waa diinta islaamka waa diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala agtiisa laga jecel yahay waa diinul islaam Ilaahay subxaanahu wa ta'aala agtiisa diinta islaamka laga jecel yahay laga aaminsanahay annagana aaminsanahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu noo soo dejiyay wax raaco oo kale ma jiraan marka qowm markuu rabo inuu dad u halaago ama uu dhibaateeyo markuu ku caqabaday islaamnimadiisa ay u dhabar adkaadaan nasrullahi bay gaaraan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa u gargaaraa Chinese-ka maanta laamiday ku dhamaanayaan tareemaday ku dhamaanayaan basaskay ku dhamaanayaan guriyihii bay ku dhamaanayaan maxaa keenayo wallahi caqabada ay islaamka ay ku hayeen weeyo waana laga gooyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu diintiisa rabo inuu u heeliyo qofna oo ma soo maro waan ognahay قوم فرعون waxa ku dhacay waan ognahay qowm caad waxa ku dhacay waan ognahay qowm luud waxa ku dhacay qowm haduu doono inuu islaamka uu ka soo horjeedsado dadkii qaadanayay diinta islaamka laga soo horjeedsado islaamkaas nasri iyo guul baa u dambeynayso ayagaana ugu dambeyn guuleysanayo Chinese-kaas maanta dad qaar waxay leeyihiin xawayaanadii iyo maaragtay wixii cawayaanka babuubayay ka qaadeen hargabka oo markii aan loogu talagelin way cuni jireen
weligood bay cunayeen cawayaamahaas, weligood bay soo dabanayeen waxaana ilaahay ugu talagelin inay la xalaalaysta ay xalaalaysanayeen. doofaarkay cunaan, eeyahay cunaan, bisadahay cunaan, waxaasoo dhan way cuni jireen. wax hadda ugu horeysa maaha. laakiinse arrintaa way ka duwan tahay. wallaahi alcadiim arrintaas way ka duwan tahay. islaamkaas 2 milyan ee meesha lagu go'doomiyey, maalinkii lagu go'doomiyey, ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta wuxuu soo diray wax aad iyo aad u sahlan. awoodda alla waad ogtihiin, wax aad u sahlan buu ilaahay soo diray. waa kan hargabkaasa lagu tallaalay, waa kaas ahayda maanta intaba ay sii socoto, ay sii laba jibaarmayaan, caalamkao dhan ay albaabaha ka xirteen. xagga dhaqaale maanta uu ka liito, magacii uu lahaa uu hoos u dhacay. waxaasoo dhanna waxaa keenayo awoodda islaamnimo iyo sabirka ay qaateen dadkii meesha ku noolaa, lagu dhibaateynayay ee masaajidyaha looga duduminayay, oo ayagoo soonka inta biyaha inti la qaado afka loo gelinayay, laguna qaarkoodna lagu toori intii dhuunta laga saaray laleeyahay ka noqdo diinta ridooba, ay u dhabar adkeydeen oo ay u sabreen. maanta islaamkii wuxuu gaaray guul iyo nasr buu gaaray. labadooda maanta ayagaa dhibaato badan markii loo fiiriyo. maanta reality-gan aan ka hadlayno, ayaga iyo maanta nimankii islaamka ay la dhibaateynayay ayagaa ka qiimo badan. walaalkay iyo walaashayow, islaamnimada waa shay aad iyo aad u qiimo badan. nicmatul islaam hadduu ilaahay ku siiyo wax uu kaa reebtay ma jiraan. wallaahi waxaan ognahay dad badan oo maaragtay si easy islaamnimada ooga baxayo, iimaan darri ooga baxayo, amaad waxeesha ooga baxayo. dadnan fiiri wallaahi bilcadiim, dadna ayagoon ku dhalanin bay intay qaateen bay ogaadeen islaamnimadii macaankeedii oo lagu duleynayay, oo toori intii lagu dilayay ay u diideen oo leeyihiin annaga ka bixi mayno, waxaan ku dhimanaynaa ashhadu an laa ilaaha ila allah baan ku dhimanaynaa. dadna hunguri dartii baa laga yaabaa inay intii wax loo yaro waxeeyo inay islaamnimada uga baxaan. marka diinta islaamka waa diin aad iyo aad u qiimo badan. waa diin adduun iyo aakhiraba ku anfacayso. waa diin adduun iyo aakhiraba ku soo dhaweynayso. ilaahay subxaanahu wa tacaala baad la kulmaysaa maalinkii yowma alqiyaamo haddaad si dhaba u aaminsan tahay, tawxiidkaadana uu yaqiin yahay, waad guulaysanaysaa. marka waxaan leeyahay, ogaada islaamnimada waa shay aad u qiimo badan. haddii ilaahay diintiisa aad ka soo horjeesato ama aad ku dhabar adeegtaato, dee awoodda allah iskale. asagaa diinta ilaahay wuxuu yidhi aniga diinteydii anaa iskale, kitaabkaygiisan asagaa xigtisanayo. marka Chinese-kaas maanta waxaa haysato mucjiso rabbaani baa haysato. caalamha wax u tara wakaasi maanta caalamkii wax u taraya ma jiraan. Chinese-kaas diin ma haystaan, waa dad buddiis ah, waxay aaminsan yihiin dhagax iyo balaayo iyo aaminsan yihiin. laakiinse intii qaadatay ee quruxda badnayd bay rabeen inay duleeyaan oo dhibaateeyaan. laakiin nasri iyo guushi allah maanta imaatay. 2 sano 3 sano ka hor bay Soomaaliya 4 sano ka hor iyo ilaa hadda go'daamin ku hayeen dadka islaamka ah. laakiinse ilaahay waa u sabriyay, waa u dulqaadanayay, waa fiirinayay. maanta laakiin waxaa go'aan ah uu ilaahay go'aankiisa uu keenay, nasriga iyo guushiisa ay keentay islaamnimada. dadka islaamka maanta inay farxaan oo ayagana amaartay qof islaam ah oo maanta Chinese ah oo dadka la duleynaya ah oo hargabka qaba ma jiraan. waxaa lagu masiibay oo lagu abasiibay dadka ku duleynaya baa lagu asiibay. walaalkii Shaakir, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. fadlan sii share garee, nagula soo wadaag commentigana. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.